sidee hal mar magaca looga bedelaa faylal tiro badan. haddii aad fayl badan haysato oo faylashu isku wada magac yihiin tusaale ahaan aad screenshot oo kale markasta screenshot qaado automatically waxa ku qornaanayso screenshot kadibna date-ka iyo time-ka ku qornaanayo laakiin waxa laga yaabaa in screenshot-yadan ay kala duwan yihiin tusaale ahaan screenshot-ka qaar waa MacBook weeye qaar iPhone kaad ku qaaday laakiin dhammaan wada screenshot weeye haddii aad hal xabo kaliya raadinayso oo ku reeraysaa marka sida ugu fudud magac lagu bedeli karo waxa weeye inaad all highlight gareyso kadibna right click dheh kadibna waxa tiraahdaa rename kadibna halkan aad ka dooranaysaa waxaad u baahato hadaad doonayso waxa replace with text baad ku bedeli kartaa sidoo kale waxaad oran kartaa add text ayaad ku daraysaa after name kan oo kale tusaale ahaan magacaan screenshot u yahay yaad si raacin kartaa marka tusaale ahaan daan raano hadda ka soo qaado kale MacBook and rename waarta screenshot and then aakhir waxa raacay MacBook sidoo kale textiga dhan ayaan bedeli karnaa hadii marka la highlight gareeno oo aan raano right click and then rename hada doorato replace text time bedel halkan ay find ku qoran tahay marka waa inaad ku qortaa waxa meesha aad doonayso in laga helo maadaama ay sawiradan screenshots yihiin waxa leenahay marka screenshot ku ka find garanaya textiga lagu bedelayna waxay noqonaysaa marka let's say Somali name arta marka Somali dhamaan magacyadooda waa Somali ay date-ki laakiin marka hadhow raadinayo screenshot Somali hadaan iraahdo waa soo wada baxayaan sidaan waxaad ku baratay si jumla ahaan faylasha magaca looga wada bedelo